Ma qiyaasi kartaa nin hantidiisa gaarka ah ay gaartay heer fuliyaasha qasnadihiisa oo keliya ay xamaali jireen raggii ugu xooga waaweynaa ee dunida markaas joogay? Kani ma ahan qiso khiyaali ah, ee waa qiso dhab ah oo ka dhacda taariikhda aadanaha. Maantana waxayna ka sheekeyn doonaa qisadii ninkii ugu hantida badnaa ee adduunka, laakiin kibirkiisu uu horseeday mid ka mid ah ciqaabihii ugu argagaxa badnaa ee taariikhda aadanaha ka dhaca. Muuqaalkeen hadda ayuu noo bilaabi doonaa. Fadlan haddaan ugu cusubtahay subscribe saar, haddaa hore noo joogtana like dhig, waa mahadsantahay. Sida ay sheegeen culimada tafsiirka sida Ibnu Kasiir, Qaaruun wuxuu ahaa ina adeerkii Nabi Muuse calayhi salaam, wuxuuna ahaa nin ka tirsan reer Bani Israa'iil. Bilowgii hore wuxuu ahaa nin dabeecad wanaagsan leh, aqoonna u leh akhriska Towraadka. Xitaa waxaa lagu naanaysi jiray Ad-Nuur, sababtoo ah markii uu Qur-aanka akhrinayo codkiisa ayaa aad u macaanaa. Laakiin maxaa isbedelay? Qur-aanka Kariimkana wuxuu sifeeyey qasnadaha furiyaashiisa oo keliya inay xamaali jireen, oo xitaa ay dhib ku ahaayeen raggii ugu xooga waaweynaa dunida markaas joogay. Bal qiyaas kaliya furiyaal hantida ee raggii ugu xooga waaweynaa dunida ay qaadayeen hantidiisa ilaa intee ayay la egaan kartaa baaxad ahaan. Hantidii aad ku faraha badneed darteed, Qaaruun waxay ku reebtay kibir iyo isla weyne. Wuxuu bilaawday inuu iskala weynaado dadkiisa, isagoo hilmaamay dhibaatadii iyo adoonsigii Fircoon. Dadkii caqliga iyo iimaanka lahaa ee qoomkiisa ka tirsanaa ayaa u yimid si ay u waaniyaan. Waxayna ku dhaheen, ha kibrin, Ilaahay ma jeclo kuwa kibra. Waxayna kula taliyeen in hantidiisa uu u isticmaalo aakhiro, masaakiintana wax ka siiyo. Qaaruunna wuxuu ku yidhi si kibir iyo aqoon sheegasho leh, hantidan waxaa lee siiyey oo keliya aqoon iyo cilmi aan anigu leeyahay. Wuxuuna dafiray nimcadii rasmiga ahayd ee eebbihiis ka timid. Maalintii dambe Qaaruun wuxuu soo baxay isagoo wata dhammaan xaragadiisa, ciidankiisa iyo hantidiisa si uu dadku u tuso awoodiisa. Markii ay arkeen dadkii nolosha jeclaa, waxay ku jeeraadeen, waxaan jeclaan lahaa inaan helno wax la mid ah waxa la siiyey Qaaruun. Runtii waa nin nasiib badan. Laakiin dadkii cilmiga lahaa waxay ku yiraahdeen, abaalmarinta Alle ee aakhiro ayaa u khayr badan qofkii rumeeya ee camalfal sameeya. Kibirkii Qaaruun markii uu xadkiisa dhaafay, waxaa yimid amarkii Alle. Allahna wuxuu amray dhulka, isla daqiiqad gudaheed dhulkii ayaa dilaacay, wuxuuna laqay Qaaruun gurigiisa iyo dhammaan qasnadihiisa dahabka ahaa. Lamana helin cid badbaadiso, waayo Allah amarkiisa cid ka hor imaan karta maba jirto dunida. Dadkii shalay rabay inay noqdaan sida Qaaruun oo kale, naxdin ayay la dilaaceen. Waxayna yiraahdeen, haddii Allah na dhexgelin naxariistiisa, anagana dhulka ayaa nala jari lahaa. Qisada Qaaruun waxayna baraysaa in hantida ay tahay imtixaan. Haddii aan Allah looga mahadnaqina, waxay isu bedeshaa halaag. Kibirkuna waa marada Alle, ninkii isku daya inuu la qabsado wuu hoogayaa. Haddaba saaxiib, maxay kula tahay maxaan ugu muhiimsan aad ka barata qisadan? Fikirkaaga noogu reeb qaybta commentiga, una sii sheer garee asxaabtaada si